Assalaamu calaykum. Halkani waa kanaalka daruuraha. Sida aan ogsoonnahay tan iyo bilihii la soo dhaafay, waxaa caalamka oo dhan mar qura saameyn weyn ku yeeshay caabuqa coronavirus oo la xaqiijiyey inuu gaaray ilaa 187 waddan oo dunida ah. Isla markaana xanuunkani ku dhacay dad ka badan 3 milyan oo qofood, waxaana fayruskani uu wiiqay dhammaan dhaqaalihii adduunka, hadday ahaan lahayd suuqyada dhaqaalaha ee ugu waaweyn caalamka iyo kuwa dalalka soo koraya. Waxaa isbedelay habnololeedkii guud ahaan dadka caalamka. Dalal badan ayaa albaabada la isugu dhuftay, dad badan ayaa shaqo la'aani ku dhacday, goobihii waxbarashada, guryihii cibaadada, meelihii dadku ku kulmi jireen iyo suuqyadii ayaa la xiray, waxaana dadka loo sheegay inay kala dheeraadaan ugu yaraan 2 mitir. Mar haddii la yidhi dhaqdhaqaaq ma jiro, waxaa meesha ka baxay safarradii dadka dunidu isku dhex mari jireen iyo wax isdhaafsigii, waxaana la tiiriyey diyaaradihii oo ahaa kuwii ugu badnaa ee dadka u kala daabuli jiray qaaradaha iyo waddamada kala duwan ee caalamka. Haddaba, waxaa la isweydiinayaa, goormee laga yaabaa in mar kale ay dib u bilowdaan duulimaadyadii caalamiga ahaa? Waddanka Argentina ee ku yaalla koonfurta Mareykanka ayaa isagu mamnuucay duulimaadyada ilaa bisha Sebtembar ee dabayaaqada sanadkan, waxaana uu sidaa u yeelay coronavirus dartiis. Halka dalal badanna ay sheegeen inaan lagu degdegi karin in la qaado xayiraadda safarrada caalamiga ah maadaama aan weli wax dawo ah loo helin xanuunka coronavirus. Sidoo kale, xildheerayaasha ku takhasusay duulimaadyada ayaa waxay iyagana sheegayaan inay weli xilli hore tahay in laga hadlo duulimaadyada, balse xilli aan fogeyn ay dunidu dib isugu furmi doonto. Waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ku soo dhacdo, sidee u ekaan doonaan duulimaadyada marka laga soo noqdo coronavirus? Si loo ilaaliyo badqabka rakaabka, waxaa garoomada kala duwan ee diyaaradaha caalamiga ah ay raaci doonaan tilmaamaha caafimaad oo ay ka mid tahay in la kontaroolo caafimaadka dadka safraya, in jeermiska laga dilo gudaha madaarada iyo weliba diyaaradaha dhexdooda, dadkuna ay xirtaan maaskarada sanka iyo afka lagu xiro inta ay safaradooda ku guda jiraan. Waxaa kaloo iyana la soo jeediyey in dadka ka soo bogsooda caabuqa coronavirus la siiyo baasabooro lagu garto inay ka soo caafimaadeen cudurkan. Hase yeeshee, Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay inaan arrintaasi lagu kalsoonaan karin, isla markaana aysan waqti xaadirkani jirin caddayn muujinaysa in qof ka soo bogsooday COVID-19 uusan mar labaad ku dhici karin cudurku, taasoo loola jeedo in coronavirus uu yahay xanuun hal mar oo keliya qofka ku dhaca, haddii uu ka soo caafimaadana uusan mar labaad ku dhici doonin. Waddamada qaar sida Imaaraadka Carabta oo kale waxay soo jeediyeen in baaritaan dhiig ah laga qaado qof kasta oo safraya inta uusan raacin diyaaradda, si loo ogaado inuu qabo coronavirus iyo in kale. Baaritaankaasina waxa uu qaadanayaa muddo 10 daqiiqo ah, laakiin qorshahaasi waa mid aan sahlanayn oo u baahan waqti iyo kharash. Qofba meel baa u darane, dad badan ayaa waxay soo xasuusteen ama isweydiiyeen, maxaa iska beddelay dhanka xeebaha lagu dabaasho, maadaama ay iyagu aad u jecel yihiin inay xeebaha caalamka ku qoraxaystaan. Waxaana haatan jira qorshe ah in kuraasta xeebahaasi la dhigo ee ay dalxiisayaashu ku seexdaan si ay cadceedda qorraxda isugu dhigaan, la kala dhex dhigo muraayad xagga sare u dheer si aysan isugu gudbin neefta dadka is-ag jiifa. Waxaana qorshahani si weyn uga fikiraya Talyaaniga oo dadkiisu ay sawir gacmeedyo ay soo bandhigeen ku muujiyeen nidaamkan. Waddankeena Soomaaliya oo ka mid ah dalalka uu saameeyey coronavirus ayaa waxaa jira in dhakhaatiirtu caddeeyeen in dad fara badan ay u dhinteen sababo la xiriira xanuunkan, maadaama dadka intooda badan ay bukaanadooda guryaha ku haystaan iyadoo aysan jirin isbitaallo bixiya baaritaanno iyo adeeg caafimaad oo bilaash ah. Waxaa kaloo jirta in dadka Soomaaliyeed aysan weli ku baraarugsaneen khatarta uu leeyahay cudurkani, oo aysan xitaa ugu yaraan beddelin qaabkii isu soo dhowaanshaha dadka si loo ilaaliyo inaysan shacabku isku gudbin fayruskan, iyo in sidoo kale ay habboon tahay in aad loogu dadaalo nadaafadda. Dhanka safarrada dibadda, waxaa jira in dad badan ay haatan bilaabeen inay iska iloobaan dalxiiska dibadaha ilaa waqti dambe, iyagoo u beddelay inay ku dalxiisaan gudaha dalalkooda. Isku soo wada duuboo, dad badan ayaa koronaha dhinaca kale ka eegay, waxayna sheegeen in coronavirus uu keenay nadaafad dheeri ah iyo in la laba jibbaaro nadiifinta goobaha ay dadku wadaagaan sida kuraasta, miisaska, meelaha gacmaha lagu taabto iyo wixii la mid ah. Laakiin waxaanan shaki ku jirin inay waqti badan qaadanayso in dadku isu dhex galaan, isuna aaminaan sidii hore ilaa inta cudurkani dawo looga helayo.
caalamkuna si rasmi ah u caddaynayo in la dabar jaray COVID-19.